عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كيغا يسرا ميديا هدي أرنتيني ولا لهيغا سوماليات سيدي قنتدي أو كلا إسوغو لابلامتي ميان حال عصب أن عدوغا إساقا جبنا أهلني ومايا taas beddelkeediiba qorshihii shisheeye waa uu nagu meermay wuxuuna noo saameeyey abaar qeexan oo u sabab noqotay anagii dhexdeena inaan boob dil iyo gunaad iskula kacno gumaystihii markuu arkay inuu qorshihii boobka kula kacayay gunaadka Soomaali iyo dalka Soomaali boqolkiiba 85 u hiirgashay ayaa 1994 mar kale ugu soo hanweynaaday wuxuu mar kale isugu dayay waji samafal wuxuu ku magacaabo inuu ka hirgeliyo dalka gudihiisa asagoo qaybna naga midaana xaalad aan marna laga kabsan karin ku hubsaday kuwaasoo hub isugu adeegtiyay dhiig la qobo ee Soomaaliyeed ciidda Soomaaliyeedna lagu qobo inteena soo hadhay laba qaybood oo u kala qaybshay qaar naga mida dalkii inay ka faarujiyo oo naftoodii ay isdhahaan badbaadsada kuwaas oo intooda badan u gacan galay dalalkii uu qaybab ka mida dhulkeenii Soomaaliyeed u qaybiyay ay hoos imaadaan xukuumadooda oo gacantooda dib ugu soo hooshaan inta kale na raashin iyo lacag samafal wuxuu ku magacaabo ayuu u qaybshay asagoo gumaystaha meeshaas ka damacsanaa saaxiibtinimo wax la yiraahdo dalka inuu ka hirgeliyo asaga u hoolan mar uu ku soo caga dhigo dalkeena Soomaaliya sirtaas oo anaga aan marna gabi ahaan Soomaali hadaan nahay aanan ku baraarugsaneyn maxaa yeelay anakiyo cadow isku aragno oo foolka fool iska soo horjeedna cadowtinimo na isku xambaarsan ayaa uu shisheeyihii faa'iido badan u noqotay waran dilaana anakana nagu noqotay indhihii Soomaali guud ahaan waxaa saameeyay qalbi jab iyo niyad rajo lahayn ayaa gabi ahaanteena qolo waxay noo sababtay inaan gees dalka ka guduudsanaano ama ku koduudsanaano caalamkoo dhan oo ishoodiina soo qabatay dunidoo dhan oo fajac la noqotay arrintaas Soomaali iyo dalka Soomaaliya ka socota gumaystihii oo qorshihiisii casriyeeyay ayaa dunida ku shaaciyay kana dhaadhacsiiyay samafal raashin uu shacab u gaarsiinayay dalka dhexdiisa ayaa hor istaageen maleesiyaad hubaysan oo ciidan kuwaas oo boob iyo dhac shacabka kula kaceen taasoo nan bilaadanka wax uu fiirsan karin la noqotay Soomaaliya oo noqotay dhul lama degaan ah oo abaarowday dadkii oo shacabkii oo dhimanayo naftii luqunta u soo haleeshay ayaa wuxuu yiri gumaystihii kuna heshiiyay inuu 24 saacadood xal uga dhigay inuu dalkii ku afgambiyo dadkiina ku qabsado laakiinse alxamdulillah ayaan leenahay dad ilaahay aaminsan oo daacadna uurkoodana wax kuma qaadaan ah oo qiyaano shisheeye allatiisii ka xoog badnaatay alxamdulillah qorshihii afgambiga waa saqiiroowe ee shisheeye uu xambaarsanaa wuxuuse ka hirgeliyay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba inay wax lagu magacaabo aan ku dhabar jabiyo aan ku gumaado aan isdabargoyna hubna aan ku adeegsado wax loo yiraahdo aqligii aqoonyaanadeennii waa la gatay maal iyo lacag dollar la yiraahdo ayaa lagu gatay siyaasadiinteennii waa la iibsaday waxaa lagu iibsaday aqliyanna waa loo degay qorsho
waxaa lagu iibsaday wax la yiraahdo lacag oo aan adduunkaba haddeer ka socoto laguna iibsaday insaan walba markaasoo laga cabsi qabay haddeerna laga cabsi qabo welina laga cabsi qabo inay arrimahan ay fashilmaan ayaa waxaa loo ambadbaxay inay markasta siyaasi kastoo isyiraahda dalka iyo dadka badbaadiba inay loo fadhiisiyo kursi boqortooyana loogu camiro gogol nabadeedsan oo dalka iyo danta la yiraahdo dantooda ayaa waxaa laga hirgeliyaa hadba sanadkay noqotaba xilligay noqotaba dalalka shisheeyaha ay markaas dhulkeennii gumaystaha u qaybshay meeshaasoo sidii dad boqortooya maalin walba looga soo dhoweeyo laakiinse dalkii dhexdeedii dadkiisii la dhammaynayo kaas meeshaas u ambadbaxayaba ma aqligeennii ayaa noqday doolarku iibsi ma dhiigeennii baan noqday dhabargooyo hala dhammeeyo ma dadnimadii baan ka dhimanay oo diintii ayaan ka fogaanay